waxay buuxinaysaa habdhaqanka ciidamada iyo kala dambeynta. waxaa soo noqonayso marka la helo in maxkamadda ciidamada ay dul taagan tahay mar walba furimaha, waxaa imaanayso moraalkii ciidanka, waxaana dhismaayo mataqaanaa waxyeeladii gaaraysay iyo dhibaatadii imaanaysay. mar haddii maxkamaddii ay joogto waxaa yaraanayo tacadiyada ka dhaca iyo gafafka ciidamada ka dhaco. waxaa kaleeto sidaasoo kale yaraanayo mataqaanaa wax kasta oo caqabad ku noqon lahaa amniga. bismillaahi raxmaani raxiim. horta ugu horeyn waxaan salaamayaa madaxweynayaasha heer federaal iyo heer state, madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne axmed cabdi kaariye. waxaa kaloo salaan taas la mid ah u diraya guddoonka baarlamaanka iyo guddiga fulinta dowlad goboleedka galmudug. sidoo kale shacabka aan matalo ayana reer galmudug dhanka sharciga aan ku matalo waa salaamayaa. salaan kadib booqashadayda muddada halka bil aan ku maqnaa shaqada dhanka mataqaanaa arrimaha sharciga aan jiray dhankaas iyo magaalada muqdisho iyo degmooyinka xaradheere iyo cadale. taasna waxaan rabaa insha allah mataqaanaa ayadana doorkeeda inaan xog waran kaa siiyo. waa mahadsan tahay. waxaa waaye horta markii uu dhacay shirkii golaha amniga wadatashiga qaran ee lagu qabtay magaalada dhuusamareeb, waxaa ka soo baxay talana lagu soo jeediyey in mataqaanaa maxkamadda ciidamada qalabka sido ee daba socoto ciidamada furimaha joogo si mataqaanaa ciidanku moraalkana uga dhismo, dhanka sharcigana uga dhismo. marka qayb ayaan ka noqonay haddaan nahay xafiiska qareennada xalane. meeshaas waxaan aadnay dacwooyinkii si aan u kaabno mataqaanaa baahida sharci ee ka jirto dhanka maxkamadda ciidamada qalabka sida. marka waxaan ka buuxinaynay booseshinkii haykalka garsoorka ee ku dhisnaa saddexda hay-adood ee kala ah xafiiskii xer ilaalinta ee oogista dacwadda lahaa. annaguna waxaan matalaynay xafiiskii qareennada ee difaaca dacwadda lahaa, halka garsoorkuna uu dacwada qaadahayay. marka sidaas waxaan ku samaynay mobile code waxa loo yaqaano maxkamadda wareegta. saas ayaan waxaan ku tagnay magaalada xaradheere oon kaga qayb galnay kiis galdacwadeed horyiilay maxkamadda ciidamada qalabka sida. kiiskaasiitiyo culayskiisa lahaa, miisaan aad u culusna lahaa, oonan ka qayb galnay annagoo fulinayno awaamirtii ka timid madaxda qaranka. sidoo kale waa la socotaan kolle qalabka warbaahintana waa ka aragteen. cadale waxaa ka dhacay burcad ayaa waddada waxay u gashay dad safar ahaa. ha ahaatee maxkamadda ciidamada waxay ku qasbanaatay inay tagto goobtaas, dacwaddaasina ay qaado. sidaas ayaan qayb kaga ahaa, walow anigu aan difaac u ahaa mataqaanaa dadkii eedda la saarayay ee la eedeynayay. difaacaasiiti oo ah difaac dastuuri iyo mid qaran labadaba. waxaa waaye taas waxay buuxinaysaa arrin jirta waaye, waxay buuxinaysaa habdhaqanka ciidamada iyo kala dambeynta. waxaa soo noqonayso marka la helo in maxkamadda ciidamada ay dul taagan tahay mar walba furimaha, waxaa imaanayso moraalkii ciidanka, waxaana dhismaayo mataqaanaa waxyeeladii gaaraysay iyo dhibaatadii imaanaysay. mar haddii maxkamaddii ay joogto waxaa yaraanayo tacadiyada ka dhaca iyo gafafka ciidamada ka dhaco. waxaa kaleeto sidaasoo kale yaraanayo mataqaanaa wax kasta oo caqabad ku noqon lahaa amniga. annaguna waxa waaye waxaan u taagannahay mar walba difaacaasiitiyo micnihiisu yahay caddaymaha marka loo baahdo. haddii cadaymihii ay sugnaan waayaanna waxa waaye meeshaas ciqaabi ma jirayso. maxkamaddu waxay sii daynaysaa dadkii lagu haystay kiiska oo waxaa meesha ka baxayo ciqaabtii. marka haddii cadaymanku ay jiraanna waxaa imaanayso ciqaabtii oo ciddii faldambiyeed geysataa meeshaa lagu maxkamadaynaya, meeshaana lagu ciqaabaya. horta fursaddan anoo kaga faa'iidaysanayo dhanka aqoontayda sharci iyo tala bixineed
waxaan soo jeedinayaa kow ugu horeyn dastuurka galmudug qodobkiisa 5aad farqadiisa 2aad wuxuu sheegayaa in awood dhismaha maamul goboleedka galmudug uu yahay 3 hay-adood hay-adda ugu horeysa oo ah sharci dejinta hay-adda fulinta iyo hay-adda garsoorka waliba wuxuu leeyahay waa in ay iskula shaqeeyaan si hufnaan leh karti leh isla xisaabtan leh marka inta badan waa aragnaa sharci dejintii howlaha ay qabteen inta badan waa aragnaa fulintii waxaa gaabis yar ku jira dhanka garsoorkana maadaama la sameeyay sharcigii nidaamka garsoorka waxaan soo jeedinayaa in madaxweynuhu uu taabo qaado dardargeliyo la sameeyo guddigii adeega garsoorka si loola xisaabtamo garsoorka midda kalena garsoorku habacsanaana jirto habacsanaantaas jirta waxaa ka mid ah baahiyaha gaarka ee garsoorka ma dhammaystirna xukuumadda galmudug waxaan ka codsanayaa in baahida garsoorka ay dhammaystirto si loo helo garsoor ka gaaro go'aan mataqaanaa caadil ah isagoo aan ku xisaabtamaynin nolol maalmeedkiisa balse baahidaasi ay daboosho xukuumadda midda kale anuu fursadda uga faa'iideysanayo waxaan leeyahay qareennada saaxiibada ah in ay bixiyaan la talinta sharciga ayna siiyaan wasaaradaha iyo qof kastoo shacab ah si volunteer ah si uu u dhismo maamul goboleedka galmudug dhanka sharcigana uga soo dhismo intaas ayaan tala ahaan ku soo jeedinayaa